الرحيم الحمد لله رب العالمين waxa anigoo ah gudoomiye ku-xigeenkii tuulaha Baargo Mukhtaar Cabdi Cismaan waxaan salaamayaa marka hore mujtamacan ka soo qayb galay xafladan ayaan salaamayaa waxana aanu ka hadlaynaa oo aanu ka hadlaynaa meesha yar waa amjees sina loogu dhisay cidima iman mid iraabana looma kiin waa arkaysaan oo way xirantay waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo cidii danaynaysaba waxa weeyaan meesha xiran ee xabad iraaba aan dhex oolin caalamkuna wax nala mid ma jiro intaana waa hadlayna wax naga hoos qaadaana ma jiro annaga hagaajin doonaan tareedo mad cidiba dib noogu soo noqonin waxaanu leenahay meesha xiran ee caruurteeda ka oofto hayso iyana gabadha umulaysa ee dhiig joojinta u baahan midnaba ma hayno dhisme hagaagsan ma laha waa qolka yar oo bari inta naloo dhisay aan dib cid noogu soo noqonin waxaan u sheegaynaa cidii danaynaysa deegaankan Baargo dawladda iyo hay'adaha waxaan u sheegaynaa in baahi weyn ay taalo oo caafimaadkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa inamada iyo dadka ka qayb galay qalabkan warbaahinta noo keenay si aanu uga hadalno baahida deegaanka taala MCH-ka qolkan yar baa noo dhisanoo meesha waa laga taagay wax guriga marka la dhiso wax haddii aan siduu ahaa iyo wixii loogu talagalay aan la waafajin iska waa guri meesha ka dhisan wax camal u sameynaya ma jiro MCH-kan deegaanka waxay inta taala waa 300 qoys bay ka koobantay meelaha ilaa 500 qoys meelaha wax caafimaad ay haystaan ma jiro deegaan inta lego faraha laho dad inta lego bila caafimaadina caalamka inaan ku walban malaynaya ilmo yar oo fahayso wax lagu mudaaxitaa wax loogu sokeeyo sayla ay inta gaari loo kareystaa sayla lagiya marka waxaan u baahanay dawladda iyo hay'adda caafimaadka waliba in meeshan wax looga qabto MCH-ka oo meel shaqeynaysa oo haddii buu ka oofaysan iyo gabadha umusha ee halka Hargeysa lagiya ilaa Hargeysa gaar loo kareystaa gabadha halka ku dhiig beesha inta malgood ku kale ku dhimatay tira male marka waxaan u baahanay in wax looga qabto MCH-ka caafimaadka wax looga qabto si degdeg waliba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.